السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد الصومالي وأنا السلام عليكم استاجوكتان خاصة أصحاب تيدا يوف ملك وحرم waxaan saaka idin wadaahay maxaa waaye horta waxaan leeyahay waa subax axad wanaagsan mar waqti kasta idin tahay wanaagsan waxaan idin rajaynayaa inaad caafimaad qabtaan san anigu caafimaad qabo oo nabadii caafimaadka u soo toosay waxaan idin rajaynayaa insha Allah inaad barwaaqo ku soo toosteen barsh ku barwaaqaysateen ku bariisateen saaka waxaan la wadaagi rabaa maanta waa axad naaga shaqaalada axad ma joogaan maanta marka anaga shaqaynayno marka waxaan sameynaa quraacdeen ka bilaabaa quraacdan kalena guri hagaajistan gala maasha Allah waa is soconaynaa hadda jikran soo galaya waxaan bilaabaa quraac yar ban karinayaa canjeeradii marqeedii maasha Allah daawasho wacan aan rajaynayaa inta waxa igu jira hilibkii dadkan saarnaya inta waxa ii yaala fiyaasi iyo kaaroodkii ka soo jira soo qabsanaya maasha Allah marka waxaan leeyahay maanta waxaan isla wadaagaynaa quraacdeena subaxnimo guriga shaqadiisa waxaan ku dhahay maanta lugaha wadaalayaan baa quraacda loo bibiibayo shaqada waa isugay adeed waa isugay waxaan ku dhahay boobsiis le waxa lagu qabanaa maxaan u taqaaniin orod le day dasan baa lagu haynaa maanta marka insha Allah hadda quraacdan ka bilaabaya quraacdan inta dabka ii saaran tahay weel dhaqo iyo shaqado aan gilaa marka waxaan idin rajaynayaa maanta waa maalin axad inaad si fiican ii fiirsan doontaan insha Allah maanta waqti shaqadeena subaxnimo aan la wadaagi rabaa wixii aan subaxii qabano subaxii hore in ma canjeelo macsaran siiya laakiin half time waay hadda oo quraacda 4 saac soo laabanayaan waay marka insha Allah waxaan idhahay hadda fadhidaan ka hadda jiibtaan istaaga hadda fadhidaan waxaan ku dhahay maxaa dhahay ila shaqeeya subaxa saaka dhexda iyo xiran dhexda ayaa ii dhuqsan shaqooyinka lama qabanay saaka shaqo kale ma jirto shaqada saaka waa quraacdan ka shidan tahay guri hagaajis ay ka shidan tahay marka maxay tahay asxaabadii daawasho wacan waa isu soo laabanayna insha Allah quraacdii wixii ka soo wanaagsan asxaabay waa u jeedaan birtiiba maxay tahay la tirtiraa canjeelada waxaan jecel markaan dubayo inay jilicsan tahay canjeelada aadka u jilicsan baan jecelahay waliba iyada macaan canjeelada yara adag ma jeceli weligaan canjeelada waxaan ka dhigaa biyo markay dubanto khafiif macaan badan bay noqonaysaa maasha Allah qurux badanaysaa marka waxaan idin dhahay saaka canjeeladii haafka hore ilmahan siiyay macsari waxaan ku siiyay shaah haafki dambe marqa lagu cunayay ilmaha marka inta badan qarba dugsigaan ka imaan dhowr cunug waaye 3 cunug aniga bas qurac sameeysanayna qurac yar kooban waaye afkiin dambe sameeysanayna marka maxay u jeedaa canjeelada quruxdiisa birta u fuqayso waa canjeelo aad u jilicsan waa u jeedaan canjeelada markay jilicsan tahay markaasay qurux badan tahay oo fiican tahay isku dhaq waa ku dhaaf markay jilicsan tahay hooyada canjeelada maasha Allah dadka ma xiisa dhacayaan canjeelada markaan dubayo waa u jeedaa hadda marqeera dabka noo saaran maasha Allah shaqada waxaan ku dhahay maanta ma yara waxaan dhahay asxaabayde waa u jeedaan meeshan shaqa ka socoto maxay tahay hadda hilibkii raas ka shiilana qudaartu aan soo diyaarsana maasha Allah marka waxaan dhahay asxaabayde aan sala shaqeyno maxay hadda basal baan ku darsanaynaa basashaasi adduunkiisa gab aa lagu siinaa igu tuur baa la dhahaa igu tuur baa la dhahaa marka maxay tahay quraac yar boobsiisa oo la isku boobsiinayo oo maxay tahay caloosha lagu biyo ma la rabo in lagu dahdaaho marka waxaan idin dhahay idinkana daawasho wacan ilmaha waxaa la rabaa inay maxay tahay mar walba loo hagar baxo mar walba wax loo sameeyo marwalba maxay tahay quraacda laga bedelo qadada laga bedelo maxay tahay wax walba bedel bay rabaan marka hadda u jeedaan maxay tahay kaarood yar baan ku darsan basasha kaaroodka hilibka isku shiilana maasha Allah marka waxaan idin maxay tahay aniga markasta hadda waxaan rabaa maxay tahay inaan idin la qaybsado maalinba routiinkeena mar qadadeena mar quraacdeena mar cashadeena marba waxaan la qaybsan karo wasabab aan qof shaqaysan ahay bariisan soo shaqeeyaa marka ilmihiina isku waxbarasho ka aadayaan waxiga duubay male telefoon baan ku duubtaa kaalmaysti marka maxay tahay waa ilmihiin joogaan waa shaqadii maxay ka soo baxaa waqti asaas noogu maya marka maxay insha Allah tamarteen iyo dadaalkeena waan dadaalna laakiin idinkana dadaalka la idinka arko maxay tahay aniga inta tamarteeda waan dadaala aniga ilmaha waan dadaalana insha Allah maxay tahay niyadana waa u dhisaa mar walba marka maxay tahay ujeedada bardhadii aan ku darsaday biyaan ku darsanaa waa biyeyna maasha Allah waxaan idin shaqadu maanta way badan tahay laakiin xoog ba meeshan lagu hayaan ku dhahay xooga lagu sii deynaa marka waa u jeedaan markii waan biyay maasha Allah
waan isku daboolan hadda weel dhaqow aa loo imaado waa ujeedaan maasha allah waxaa idin dhahay maanta waa ujeedaan dhaqow maasha allah wuxuu barakee waa shaqeynayaan maanta qaafada xaggeeda lagama leexanayo waa la shaqeynaa maanta shaqada way badan laakiin xoog ilaahay waa mise maadaama caafimaad qabno lixdeedii laxaad qabno shaqa wax ma naga dhibayso xoogaa aniga culays waxaa igu ah shaqaan aadayaa 8 saac meesha ugu gaar shaqaan aadayaa wuxuu inaan shaqooyinka soo gabagabeeyaa haddaan guriga joogi lahaa fiiyaashu intaas way kasii badan lahaayeen dhibka waxaa waaye maxay hayto aniga shaqaa u ordaa wixii waa boobsiina waxaan leeyahay fiidiyo maka gaartid wax maka gaartid marka insha allah waxaan yidhaa laakiin intaan dadka asxaabteeda qancin karo waa qancinaa wasaba wax dheeriya ma samaynayno waxyaabahan gurigeena cuntadan ku karsano guriga saa u nadaafsano saa maxay tahay nolosheena ay u dhisan tahay aan la wadaagayna insha allah marka waxaan riwaayadaha aan soo sameeyo waxyaabaha kale aan soo sameeyo dadka inta badan commenting kusoo bixiyaan waxaan u malaynayaa inaydan jeclaysan commentiga ay igu reebaysaan yurub ay kuma fiicno riwaayadahan ama kuma habboona ama way kugu habboon dhiirigelin lahaa hadda ma ka helin dadka ma ka helin marka insha allah idinkale idinku xiranahay hadda ay tirahdaan way fiidiyooyadan riwaayadaha iska jooji kuma fiicna ani waa iska daynaa insha allah idinkale xukuntaan marka waxaan idin dhahay wixii oo caqabad ah oo dhib ah waxaan jeclahay inaa iigu reebtaan commentiga anigu maxay tahay idinkale maxay tahay ku tashanaa sababu wixii ay iga soo tirahdaan yurub waxa ma iska jooji ani waa joojinayaa maxaa yeelay idinkale anigu idinku xeelanahay maxaa yeelay idinkale ay fiirsanaysaa wixii aad dhibsataan waa joojinaa laakiin waxaan u arkay maxay tahay markaan riwaayad camal soo samayno markaan challenge soo samayno waxyaaba soo samayno comment ma laha laakiin markaan maxay tahay cuntada iyo wixii guriga iyo nolosha soo waxayna commentigu aad u fiican yahay midda kale codsi aan wataa subscribe-kaygu hadda maasha allah waa kii kor ii qaadi lahaa maanta subscribe-ka dadka iigu jira ma aqaan way iga jiifaan ma aqaan aniga fiidiyoyaashaday nabcaysteen ana jeclaysan maxay tahay ma aqaan waxaan rabaa inay maxay tahay iyagana commentiga iigu soo qoraan sabab aniga dadkayga waaye asxaabteyda waaye dadka iiga dhow yihiin yurub family camal ba ii yihiin ilmahayga kale ii yihiin marka maxay tahay idinkaay ku tashtaa marka waxaa idinka rabaa maxay tahay inaydan ii aamusin wixii aan idin cuntamayn oo aan maxay tahay idin hirgelayn oo aydan rabay jeclaysan commentiga iigu reeba commentigu waxaa waa idinka iska leh saartaan baad maxay tahay ugu saari kartaan wixii igu xun wixii ii saxsan waa iigu soo sheegi kartaan insha allah aniga walaashiina ayaan idinka qaadanaa sabab dad isku xiran baan nahay anigu idinkale idinku xiranahay haddaad idinka hoos ii dhigtaan hoosaan galaa haddaa kor ii qaadaan kor baan u qaadmayaa markaa maxay hayto walaalayaalow waxaan idinka codsanaa inaad maxay hayto fiidiyoyaasha wixii ka qaldan wixii aydan jeclaysan aan riwaayadaha markaas ka soo gashnaa sababu maxay hayto cunto karisku waa dhib badan yahay wuxuu u dhib badan yahay inta badan jaanis ma helo maxay hayto maxay hayto marka waxaa waaye waxaan iska jeclaystay markaan family nahay ilmaha haysto waxay la matala inaan maxay hayto ilmaha markay wixii la matali karaa aan soo matalo riwaayadaho kale ka soo samayno wax igu taageero weli ma arkin waxay dhahaasi hore usii soco weli ma arkin wax waliga aamusay wax caayayna ma arkin wax dhahay maxay tahay kuma habboonidna ma arkin comment ma leh laakiin fiidiyoyaasha kale cunto kariska markaan soo geliyo way leeyihiin commentigooda wuu badan yahay marka asxaabtayda sharafta mudan dadka way iga dhow yihiin waxaan jeclaystay fiidiyoyaasha sii sheergareeya wasoo idinkaa meel gaarsiin kartaan fiideo kastaan soo dhiga sii sheergareeya asxaabtiina kusii sheergareeya maxay hayto like-ta sheerta commentiga waxaan dhahay ha ka iloobina subscribe-ta haddaad nala joogtayna like-ta iyo waxaan wehel ku nahay iyo commentiga ayaan wehel ku nahay marka waxaan idin dhahay asxaabe waa ujeedaan hee maraqeyna adduunyadeena isugu kan karkareen carcarfiskaa lagu daraa maraqa baradada inay ga burburto marabi baradadii iyo hilibkii wixii iyo islaaleeg baan rabaa inaan hal mar dabka ka dhigo marka maasha allah maanta shaqadu way badan tahay laakiin maxay ahayd caajiska la iska qad inaan shaqo ka daahana waan diidayaa waxbaan boobsinayaa shaqan aadayaa marka maxay tahay ujeedaan hadda maraq waa ii bismillaah soo kare waxaan ku dhahay
waxaan dhahay waxaa la dhahay dheriga maxaa karka keenay kuleelka karka ka keenay hadda maraq waa noo bislaaday shaahi baa dabka noo saaran maasha allah sokor yar baan ku darsanay maxay tahay waad u jeedaan he waxaan rabaa quraacka heelkiina waa kaasaa dho aa lagu siiyey calaantii dho adduunka waxaan dhahay igu tuuriga tuura aa la dhahaa waan ku dhahay meeshan boobsiis aa ka socdaan ku dhahay tarmuuska hadda loo dhaqaa shaaha lagu diyaarinaa maasha allah quraacdan diyaarinaya markaasaan guryaha shaqadooda gelaa waxaan idin dhahay he asxaabay dee hal isla socdaan ku dhahay maxay heeto meeshan waxaan idin dhahay waa say Europe family usoo xeydxeydatay maxay heeto laakiin dhiirigelinta de waa xaggiina haddaan comment idinka waayo haddaan fiirsi idinka waayo dee xogaa niyad jab baa igu imaanay waxaan leeyahay asxaabtaada ma ka helin waxaa usoo samaysay waxay too ujeeda hadda shaahii adduunyadii quraacdii waan soo diyaarsan ku dhahay canjeeladii iyo saxankii la marqaa la ordaan ku dhahay ilmihii la ordaa maasha allah waa soo dhamaystaan ku dhahay gurigaan soo galay jaf aan ku dhahay guri caruur waa qolkan waa qolkii ilmaha daaqadaha bira waa gajibiyan baan ku dhahay maryaa loogu xirxiray laakiin maasha allah lagama dayrin karaan ku dhahay maxay ta shaqaa laga aadaa ilmaamka shaqadii laga aado guriga ku jeesanayaan waxba iska jijibinayaan le maanta dhan le marka asxaab ujeedaan sariirtii maasha allah sariirtii waa sariirtii ilmaha iska leh qolkan waa qolkii ilmaha waxay ta waa isla hagaajinaynaa insha allah waxaan ku dhahay maanta dhididka iga imaya lagama sheekeyn karaan ku dhahay waayadan dhidid igama imaan inkasta markaa shaqeynaya waan fadhiyaanka aan tolaya marta dadka nasashada badan ma ihi dadka maxay ta raaxada jecel ma ihi dadka ma taagnaadaan shaqeeyaan baan guri haddaan imaado hataa ilaa 6 saac waxa la hagaajinaa waxa la kala baangeynaa waxa la waxay cudurkaas iga soo duceeyay bal ilaahay inuu hooyaday ka joojiyo waxa qof guriga soo galaysa maanta dhan shaqay ku maqnay markay guriga soo gashay buuq bilaa naa guriga waa maxaa wasaqda kaala guriga waa kan waxaad arkaysaa kuleeda guriga wasaq waa horta waa u dhalatay qaybta nadaafada maamada hooyaday anaga laakiin kama raacin ilaahay naga dhiga sidoo kale laakiin dabeecaddeeda sin uma fiicino waxay imaanaysaa maqribka ilaa 6 saac habeenimo saas u taagantahay maantana waxbay qabanay naagta shaqaalaha xataa kuma kalsoono waxay qabatay maantana way sii taagantahay guriga ay tirtiraysaa ma dhamaata hawsha hooyaday naag shaqaalada markay joogto xataa waan la shaqeeyaa waan ku daalaa maalmo aan la shaqeeyaa jirto iyo maalmo aan danahayga kale ka raacdo wasaw qof ilmoolaya tahay waxaa laga yaabaa inuu caawdhan in cunug yar usoo jeeday caawdhan maxay tahay aan si fiican u seexan maalmaha qaar xoogaa wax yar baan seexdaa subax markaan ilmaha kala diro laakiin maalmaha qaar naagta waxaan ku dhahay ani haaf bay ii shaqaysaa naag fuul ama aha haafka yar baan guriga guriga ii hagaajisaa way iska baxdaa marka maalin baan guriga la hagaajiyaa caawiyaa la nadaafadeeyaa marka waxaan dhahay sariiri waa taaga 2 go waxaan ku dhahay aad kaala arag laakiin harqadu aan isma eka maasha allah maxay heetoy waa u jeedaan lagama dayrin karo insha allah guri iska caruureed waa guri xaasa waa reer xaasa nahay maasha allah loo noo barakay waa u jeedaan jaf alla maxaa xoog Yurub ku duugan yaa wax u dirsaday showla adahaybo waxaa idin dhahay shaqada adduunka saas isugu kala yareysaan ku dhahay daaqada tirtir inkastoo daaqada sabtiga maanta aad dhiga jooji doosa maanta ma isma amaana u jeedaa yani ma amaana ma saana shaqadan qabanaya sheegaya ay ma shaqo fiican waa qabanay kaamirada maanta dhinku hayo hooyay marka ma daan shaqadaydan ka hadlayaa maxay ahayd waxaan idin dhahay naagta sabtiga guriga si fiican u sii dhaqday maantana waa guri wasakh badan ma leh waa iska nadiif laakiin wuxuu u baahan yahay waa guri ilmo seexin oo laga soo toosay ilmi way kala maqan yihiin anigii foosiyada isla joogna ilmihii kale quraacda waa loo geeyaa qadada waa loo geeyaa quraacda waa la sii siiyaa qadadana waa qadada imaadaan marka maxay way kala maqan yihiin samsam laakiin qadada quraacda waa loo geeyaa maxay samsam quraacda waa loo geeyaa maxay laakiin qadada way imaadaa marka quraacdeeda wixii waa la sii siiyaa hadda jaakadii birta jaakadaha la baangeyna waxaan ku dhahay adduunka la jaf waxaan idin dhahay maasha allah yaa xoog noo barakeeya xoog badan baan ugu duugan wadankeed markaan joognay Soomaaliya naagana nooma shaqeyn jirnay naga shaqeysan jirnay laakiin meeshan qabow baa ku gelaya maxay tahay duwad iska xanuunsanay waa wadan aad u dhalan leh marka waxa waay wadan aad nahay waa dareen ku joog ama qajir marka waxa waay wadankeeni waxaan ku dhahay intaad ilmaha haysid oo cuntada karisid waxaan ku ujeedaa hadda qolkaygaan soo galay jiifka qolkii jiifka waxaan ku dhahay daaqadaha balaq habeenkii busta la geliyo daaqadaha habeenkii bustayaal baan iska gelinaa soo qabow badan baa jiro xagga banaanka waxbana guriyanaga ma xigaan waa banaan barxad ah waxaan gelinaa markaa bustayaal habeenkii laakiin subax markaa soo tooso qolkayga subax markaa ka tooso bustaa horaan kala laabaa maxay tahay waa sii kala toosiyaa maryaha iska bixbixiyo waxay waan baangeeyaa maxay tahay wax ma ii kala daadsana cunugta dharkan ka bedel anigii cunug tiiristaa seexana qolkan maxay tahay maryahan ka bedel anigu habeenkii waa ma dhigto horaan usii bixiyaa bambarska horaan usii bixiyaa waxaa idin waa ila arkaysan hadda shaqadan qabanaya insha allah maxay ahayd waa ka saamariyaha sad waa mariya xarig ka soo guro waa la laabaya sundus iyo carfaad baa iska leh sundus carfaad armaajooyinka ku guraa laakiin inta kale qolkooda armaajadooda loogu guraa marka maasha Allah u jeedaa bismillaah maxaa xoog nagu duugan baan ku dhahay
way amaanta naga jooji ما وأوجد ده يعني ما يسمعنا وأوجد ده بشقدان قبنا aniga xataa kartidii ma aragtid maanta dhoon ku daba socda un sidaas bir ku karo walaay ما هو أوجد تاس ده وأنا كشجع بإناد محيط كاميرا أدو وقابل سنتها ماشي ده markii amaan bi مركب محيط ما ده كاميرا إن أدو إنه هي سيد مرة بواكو أمانة مرة بواشجع فيديو كست عن هذا الشجع ana niyadii أوجد فلوس بيرودو على راه بينك وعن كسر مريان كجليا السدود تدو الشبق محيط قبوق عن وعليا بينك على راه مريان كسارة محيط هذا يسكور الدابن كله لكن شف كقول قال الجفة يعني كوك توسي مرلو إن شاء الله لكن هذا يجي في تولي ما يتوسين ما شاء الله حنقول سبت إنك تقول سفي عن وصيلة قضي لكن دو أقول للساحة ولا قصة توسي وحور بقول إن له فوق إن دا قضي له فرها ولا السيو إن محيط قاع الوشيدو إن لحق حقه إن كله توسيو وحنقول أقول دد ونول كسر بحيد وأقول عدلا معها إسكابلو مركا وجد الروتين كنا ما أنت الصبح نما وحنقول هاي سانو أرديها لقي واي حنونا ما كلها مركا هذا واك وجد سريرته هرقف يا سريرته حاجات يا ما شاء الله halkan sundus baa ii jiifto ma hagaajin isma aragta si fiican baan hagaajiya asxaabta inoo kala garanaysa inay hagaajiyo in kale asxaabta inoo kala garanayso hooy wax ma hagaajin marka ana nadaafada dhiga dheeras iska dhigaysa dadka indhooda macalin waa aniga macalin ma fiirsan taxta magiis ma sha Allah way igiijsantaa sariir marka ana subax marka toosaan bustaasheeda waxay kala laabtaa busta quriya sarta masaana u jeedaa subaxa horan kala toostaa sundus mara yar baan hustay u jeedaan wali asxaabi dhigaysta ani joorgayga waa gura waxay maanta dhan shaqada waqtiyan daaqada ka bixiyay baan hadda banaanka u bixiyay baan bariski bugaagta halkaas bugaag waxa igu jirta ilmaha leeyihiin waa bugaagtooda muhiim ah buga qolkayga ku soo xiraystaa sabab waxa ka baqaynay meesha jeexan hadda fadhiga uu imaaday jaf waa ma sha Allah albaabkan furtay hawada wax war mu week walaana wax walaal ma keenin guriga waxaan ku dhahay wixii qashin hay wixii wasakh wixii adabta darnaa dhawaan ka bixiyaan ku dhahay guri aad daran baa ka soo saaray guriga ariska araga marka waxaan ku dhahay أصحابي لقى مشي كان عند لهاي شقدان قبتي أوردك روتين كنا ما أنت وحنا كلها ما شاء الله وحنا لهاي معلومة بدون وايد لسه وداقة وحي روتين كنا معلنك استقضاء لسه وداقة قراءة لسه وداقة عشية لسه وداقة وحي أنا أودي للتمرت الأوان لسه وداقة إنت استشقد يقول بدن حتى هرقان كانوا تقول مالك يقول بدن لسه وداقة ما شاء الله وحنا لهاي أنت تمرت وداقة لكن يمكن حال دربع دال إنك لا كورونا قاعد كرتان إنك لا حتى كنت الشرنا إن شاء الله أصحابي سمعت إن الحوق في عنها هاي maalin bal u dira wax culus oo adag ay qaban kartaa ana ogta guriga xataa waa raangeeya qolalka ilmaha xataa ana raangeeya maqraati deriska iyo dadka dhanka yihiin laakiin waa idla soo wadaagi doonaa aniga YouTube aqoon aan guriga raangeysan jiray dadka deriska ilaa ana YouTube-kayga way haystaan way isticmaalaan way la fiirsadaan waxaan ka rajeynayaa inay commentiga uga soo jawaabaan ana YouTube aqoon aan maxay tahay guriyahayga raangi marsan jiray aniga kartidaas dadku ay igu yaqaanaan ilmahayga ana u shaqaysta ana u ordaa bas isga joojiyo waxaan ku dhahay wax kasta anigu shaqo guri iyo shaqo oo shaqada oo quutal daruuriga iyo shaqada guriga labadaba waa isku hayaa ma fahamtay guriga marka imaadana guriga ka shaqeeya marka shaqadeedana waa ku tashtaa shaqadeeda xataa kama daaho waa ku tashtaa waqtigeeda waa isku diyaariyaa ma fahamtay deriska waa yaqaan deriska YouTube-kayga way wada hayaan dabaqa aan deganahay wada yaqaan waa 12 sano deganahay oo laga yaqaan caanka ahay dabaqa aan ku cusbahay ma hayadaan ku cusbahay ma sha Allah waxaan ahay eega un baa soo saari kara dad iska xogaa xaasid oo iska jira laakiin deriska inta wanaagsan baan ka hadlay anigu dadka in xun way jiraan in wanaagsan way jiraan inta xun ilaahay waxaan uga baryaa inuu ilaahay qulubtooda samaanta u mariyo marka anigu waatana sundus oo soo toostay shafkayga orkayga ku soo toostay masha Allah kana guriga la qaacina marka waxa laga saaraa wixii urtii usagii iyo qaac lagu shiday waxaan isku daray asxaabi garaan ana diiday marka hooyo guriga masixisay laakiin daa u jeedaa hawsha oo samaysay marka dar waqtiga marka hadda maanta waxay idila wadaagnay labada qolka ilmaha iyo qolkayga jiifka iyo waxaan idila wadaagnay quraacdii intaas idila wadaagnay laakiin mar shaqada dhan hadii la isku qabana waa la isku wareeraha waa ogti laakiin maalin bahaaf yar baan soo tusaynaa insha Allah sidaan guriga maalintii wax uga qabanay sidaan maalintii routiinkeena guriga dheerta marka waxa waaye shaqada guriga qof walba waa ogaa dheeryahay hadda anigu waxaan guriga ku qaacinayaa waa luubaan iyo waxaan isku daraa in yar unsiga moogta ilmaha uma fiicna allergigooda saa'id ah marka lubaan baan inta badan guriga ku shidaa lubaanka guriga wuxuu ka saaraa maxay tahay wixii oo wasakh ah wixii oo maxay tahay ur ah wixii oo maxay tahay guriga wuxuu ka dhigaa clean buu ka dhigaa ilmahana allergy uma leh lubaanku laakiin unsigu wuxuu leeyahay allergy buu leeyahay marka asxaabay maxay tahay allergiga ilmaha allergiga qaba dahaydan sii diideen hadda waxaan ku shidayaa qaaci maxay tahay waa la xiraa qolka jiifka marka waa la xiraa sundus xataa waa laga bixinaa qolka ilmaha loo wada guuraa maasha Allah qolkii ilmaha hadda soo galay isagan daaqadii daahiyadii furfurayaan tusina qaaci asagana ku shidaa waxaan idhahay ilmihii waan bixiyay banaanka hore joogaan inta gurigu qaaca ugu baxayo uu qaacu ka baxayo banaanka hore aan diray qorax baa ka jirta banaanka hore ujeedaan daaqadaha qoraxda
marka maasha allah waxaan dhahay rootinkeena maanta idila wadaagna subaxnimo axadda mid kale maanta hadda caawa aan duubay waa sabti codka waan ka gaari waayey asxaabay caawa waa isliinde caawa isniin baa soo galaysa maanta sabtidiina ilmaha iga kala maqnaa jaanis waan waaye xalayna waan waaye jaanis oo maxay to shaqo badan baa ii taali dhar badan baan tolayay marka haddan jaanis u helay inaan cod saaro marka asxaabayda waxaan dhahay waa taas shaqadeeni dhan waan isla qaybsanay maasha allah waxaan dhahay maalinba in yar baan la qaybsanaynaa dabka kama tegayo waxaan ka baqaynaa ilmaha marka asxaabay subscribe ta like ta commentiga waxaan ku dhahay naga baqaylinina noo sii share gareeya maxay tahay waa ka baqaylina share ta commentiga subscribe ta dad nala joogtay like comment dad nala joogin hadda noo imaaday subscribe waxaad leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhawaada channelkeena waa Europe Family gacmo furan baan ugu soo dhaweynaa waji furan qalbi furan gacmo furan albaab furan familgeena ayaa ka mid tahay taas ogow asxaabteena assalaamu calaykum waraxmatullaahi